waxaa maanta degmada Saylac soo gaaray wafdi balaaran oo ganacsato kalluumaysato ah oo ka yimid dalka Turkiga isla markaasina hogaaminaya agaasimaha guud ee maktabada qaranka Soomaaliland ujeedada wafdigan ayaa waxa ahayd sidii u soo dheendeen lahaayeen kalluumaysatada ku dhaqan degmada Saylac iyagoona booqday dhismaha qadiimiga ah ee ku yaala degmada Saylac intii ay dhex mushaaxayeen booqashadan ay ku soo gaareen degmada Saylac iyagoona halkaas ku arkay masaajidka qadiimiga ah ee qiblateenka oo isagu gabi ahaanba burbursan مسؤولka ugu sareeya shirkadan ganacsatada ay kalluumaysatada ah ayaa waxa uu isagu ka qiirooday burburka masaajidka qiblateenka isagoona isla markiiba dhagax dhigay dhismaha masaajidka qiblateenka ah isagoona ballan qaaday inuu sida ugu dhaqsiyaha badan u dhisi doono masaajidkan qiblateenka ah ayaa isagu ah masaajid taariikhi ah isla markaasna lagu dukan jiray wixii ka horeeyay intaana lagu soo dajin diinteena Nabi Maxamed alayhi salaatu wasalaam waxaana markii dambe masaajidkan loo sameeyay qiblad labaad intuu noolaa Nabi Maxamed alayhi salaatu wasalaam sida ay sheegeen culimada iyo dadka taariikhiyanka ah ugu horeyntan waxaa soo halkaas ka hadlay mas'uulkii hogaaminaya wafdigan waa agaasimaha guud ee wasaaradda maktabada qaranka Soomaaliland masaajidkan sida culimadu iyo Ibraahim ka dhawaajiyeen waa masaajid في قبلتين لورنا يوي وإلا ما تدوسنا نكانوا عنوننا صاحبنا أو تركيا كيمد أيها المساجد كمان تقبل قاضي مركز شلي عن التاريخ دي يقيمه اللي هي وشك نعدو مراقبة رنتي إلهي نوع كرتشين إلهي نوع كذا بيو مساجد كان وحصوم مري أصحابه سدا لقوا ذا جعفر بن أبي طالب بن أبي طالب أو علي بن أبي طالب ولا لهاين اسمه بن عفان بس نصومري سيدا تاريخية هندو إيش يعني ما أنت كسو قرطي وأكملها إن النبي يقول علي رقية هي لسعتي أصحابها مركي هروح صومري دوري سديتن أصحابي ورجع يستدي تون دمرة مرلبات كنا وح صومري طبعا رجع يشان تمرة ما أنت رنتي نصيب بينو يالناي إن قابتي أصحابته أي صومرتي يمساجد دي أصحابتي علماء ديني ووينها لسان مقالة تاريخية. The SOMOPS, Somaliland Operations Products and Services, and the SOMOPS Foundation are very proud and honoured to be here in support of Chan, the donor here, at this very historic and special site. And we're very grateful to you all at Saylac for having us here. My name is Jan Oluklu. Being here a part of an exhibition to look into the fisheries here, I've come across a very Islamic historic site, a site that goes back into my history, part of the Ottomans who have settled and was here, part of the buildings. I've taken a position to actually spend some money to restore this site on behalf of the community here. dadweynaha ka soo qayb galay munaasabadan lagu dhagax dhigay masaajidkan qiblateenka ah iyagoona uga mahad celiyay ganacsatada kalluumaysatada ah ee ka soo jeeda dalka Turkiga aan ugu talagalay maaragtay aan maanta rajaynayna in laga dhiso masaajidka qiblateenka ma sha Allah Saylac masaajidkan ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa arrintan waa arrin weyn oo maaragtay ilaahay subxaanahu wa ta'aala ina waafajiyay waxaan ilaahay ka rajaynaynaa in ilaahay qabuuliyada ina siiyo lawa aqbalka ilaahay baa iska leh dad badan baa ballan qaaday inay maaragtay masaajidkan wax ku bixiyaan dad baa waxa taa lacagtii bixiyay oo qandaraasyadii markay bixiyeen dad uuna iska cunay wax badan oo mashaakilaad oo hore oo ilaahay dadan u ogolaan baan garanaynaa waxaan soo malaynayaa ilaahayna ka rajaynaynaa inuu noqdo kan kii laga aqbalay ku bogaadinaynaa laakiin mid kale aad u maaran lahaado maadaama oo dhismo uu imanayo dhismihiisii qadiimigii in la raadiyo dhismihiisii qadiimigii lagu dhiso si loo imaado dalxiisayaasha ama loogu soo hirto annagu jaamac baan u bixinay maadaama ninkaasi uu qiirooday oo markuu arkay muxuu ahaayay miskiidkii qadiimiga ahaa markuu arkay oo aad u qiirooday oo yiri keligay ayaan dhisayaa keligay isagana waxaan leenahay riyadiisa ilaahay inuu u rumeeyo ma markii ugu horeysay oo la ballan qaado dhismaha masaajidkan qiblateenka ah balse dad yow kala duwan ayaa marar kala duwan ballan qaaday inay dhisi doonaan masaajidkan qiblateenka ah balse ilaa hadda may suuro galin in la dhiso masaajidkani inkastoo imika rajo weyn laga qabo inay dhisi doonaan ganacsatada kalluumaysatada ah ee ka soo jeeda dalka Turkiga waa Cali Axmed Yariye Cali Dhagadalool wararka Ariel TV magaalada Saylac